الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلن كيميكو إدي كسو سلام يوم قالة مقدشو ميل والبو أدجوكتان وحايدين ليها شعبان مبارك. إلهي سبحانه وتعالى رمضان سقير قبطو أمني يستريح وكتشرو إلهي هنو قارسيو عذر كان كورونا فيروس اللي هنا إلهي دمانتين باها نغا كوريو انت قبطنا إلهي شفاء دق حسيو. صاحبي soo dhawaada insha Allah ta'ala waa organic chemistry ama hydrocarbons waxa u taqaanaan waa form 4 test oo aan rabo inaan soo sameeysan ardaygii isku soo dayana waan u saxeynaa oo sidii noogu suurta gashaa waa revision aan u talagalay ardayda inay revise sameeyaan maadaama iskuulaadkii majority-gooda fasax yihiin waxaan rabaa in ardaydu dadaal sameeyaan insha Allah meel walba ay joogaan ha noqdaan kuwa macalinku ahay iyo kuwa saaxiibada internetka ama dhinaca YouTube-ka aan ku nahayba waxaan leeyahay dadaal wacan. Saasha koowaad waxay leedahay wuxuu dhacaysaa classify each of the following components organic and inorganic. Exercise-kan waxaan ku soo dhisay buugga muqarrarka si lamida waxaa ogtihiin buugga muqarrarka ee Soomaaliya maadada chemistry-ga exercise-ka ku yaalo aniga ayaa ka jawaabay buugga aad hore idinka u sheegay inaad ka heli kartaan Irshaad Printing Center magaalada Muqdisho. buuggaas wuxuu ahaa buug ku saabsan maadaama marka buuggii soo ka jawaaban arday kasta uu helayo waxaan istusiyay ardayda Soomaaliyeed waxyaabo u eeg buuggaas waxa ku jira ardayga in uu asaga loo diro maadaama buuggaas uu macnaha uu akhrin karo jawaabaha buugga uu heli karo imtixaanka buuggaas shardi ma lagu keeno laakiin waxa u eg runtii exercise-kan hadda waxaa ka soo guuriyay buugga dawladda laga keenay marka fiirso buugga dawladda buugga laga soo diyaariyay ayaan ka soo guuriyay marka idulqaata marka su'aasha koowaad waxay leedahay kuwa waxa u kala qaadaa organic and inorganic A ilaa EF waxaa laga rabaa isku dhis kasto in organic dhahdo ama inorganic lixdan isku dhis marka fiirino mid kasta wuxuu noqon karaa organic ama inorganic. marka organic haduu in organic dheh haduu inorganic yahay waxa dhahdaa inorganic dheh. asla faanaan filaa su'aashan waxaan filayaa in isla faanay su'aashan waxaan filayaa in isla faanay wixii warbixina waxaad igala soo xiriiri kartaan numberkaas igala soo xiriiri kartaan hadduu ilaahay idmo. su'aasha labaad waxay leedahay condensed structural formula oo components-kan ay leeyihiin ayaa laga rabaa. su'aashan hadda idin xasuusiyo iyaduna waxay tahay formulas kama kala sameynayo macallimiintu idin sheegeen mid waxaa jira yiraahdo condensed formula, structural formula, molecular formula iyo skeletal formula. hadda marka wuxuu qoran yahay structural formula marka condensed ka dhig mid kasta oo kamid ah. su'aashan kale saddexaad waxay leedahay ina magacaawda laga rabaa A E B E C waxa laga rabaa ina magacaawdan ayaa laga doonayaa. su'aasha afraad waxa laga rabaa saddexda number oo combination ugu qoran waxa laga rabaa ina dhahdo kiss ama trans isomers soo qaateen isomerism kama kala joogo gaar ahaan kiss and trans isomerska kuwan marka waxa laga rabaa ina dhahdo kiss isomers ama trans isomers wuxuu yahay laga rabaa ina sheegtaan wuxuu yahay laga rabaa ina sheegtiin insha Allah مولانا. su'aasha shanaad waxay leedahay structures ka meeshan ugu qoran ayaa laga rabaa inaad macnaha dhamaystirtid adigu ku daray marka hydrogen atomiska. su'aasha waxaa umaleynaa su'aal buugga exercise-ka ku taalay camal waaye adigu ku daray marka hydrogen atomiska meeshii hydrogen loogu baahan yahay ku dar meesha loogu baahan yahay laga rabaa marka afartan xabba laga rabaa marka inaad saak soo samayso exercise buugga ku yaalay oo gaar ahaan chapter review question chapter 2 sidaan camal ah ayaa jiray marka kaas maadaama laga soo shaqeeyay kan adigu isku tijaabi. su'aasha lixaad waxay leedahay which of the following parts structures kan laba kuwaba isomers noqon kara ayna su'aal buug ku taala jirtay qaabkaas camal waaye ku laabo cilmigaaga iyo macalinkaaga ku laabo buuggaaga. okay su'aasha toddobaad waxay leedahay qolada meesha noogu qoran afartan xabo waxa laga rabaa kii molecular structure ka aan sheegayn condensed formula, expanded formula, molecular formula
mid walba wuxuu yahay ku hor qoro marka kan hadduu structural formula laysa macna saasaa laga wadaa okay su-aasha sideedaad waxay leedahay waxaa soo qaadanay alkeniska waxaan dhahnay laba qeyb ayaa loo qeybiyaa normal alkane iyo private alkane normal alkaneka waa alkaneka waxba ku dheganayn iyo waxaasa dhihi jirteen sooma marka waxaa laga rabaa structureka inaad kala saartid normal alkane ama private alkane soo dhahdaan aan laga rabaa insha allahu tacaala mar walba ducadiina aad nala garab taagantiin waan argnaa insha allah waa anigana waxyaabaha idinku soo dadaala idinku soo sameynaa waa dhiirigelintiina iyo runtii dadka aadka ila soo hadla macnaa iga mahad celiya ama nooga mahad celiya juhdiga aan wadno ayay qayb ka tahay exerciskaas marka inaan kasoo shaqaysaan isku daya exerciska waa badan yahay waxaa isku daya marka inaan soo ka koobo kuwan waxaa laga rabaa marka carbon skeletonka markaa fiiriso mid walba waxaa laga rabaa longest jenkis inaad sheegto su-aal kamila camal waaye oo waad ku jirtay kuwan waxaa laga rabaa marka mid kasta inaad magacaawdo a b c d e inaad magacaawdo laga rabaa su-aasha tobanaad ee taas su-aasha 11aad waxaa laga rabaa kuwan inaad macnaha sawirto su-aasha 12aadna waa lamid ayadana waxaa laga rabaa inaad sawirtaan ayaan laga rabaa waxaan kasoo jaray book exercise ah oo runtii aan haddan diyaarshay oo haddaan ka baxay maan dhahaa kasoo jaray oo aan rabo mujida buuggaas profileka waxaa ku qoran mujida profileka buugga hadda wuxuu ka kooban yahay 100 printed pages session multiple choice jiro certain meela banaa buuxi meel turan files jiro meel structural questions marka buuggaasaan kasoo jaray waa kaasa buuggaas arkaysaan wuxuu ka kooban yahay buugga marka waxaa isku dayi doonaa in si online loo iibiyo haddii suurtagal weyso waa daabacaynaa irshaadaan geenaynaa asagoo ka jawaaban xitaa waa sameynaa haddii oo baahi keento 360 xabo oo circle ah mujida punctuations ka samaysan kartaa macalin qofkii macalin si gaara ula soo hadli karaa oo haddii buug oo softi uu rabo iyo haddii uusan rabinba irshaadan ku xiriirinaynaa buuggan haddii marka baahi ama keento mujida ardayda in looga jawaabo buuggan muhiim noqoto waan ka jawaabi doonaa buugga waxba noguma qaadanayso insha allahu tacaala ma fahanteen marka aan ka soconno insha allah qaybtaas waa ka baxnay su-aashan marka 13 waxay leedahay iyadana kuwa inaa magacaada laga rabaa su-aasha 14aadna waa lamid iyadana waa magacaabaysaa waa cycle alkeniska kuwii ahaa waay qaybtan kale waxaa way tahay qayb oo organic chemistry oo circle la gelinayo carbon compoundska waxaa loo feeriyaa lace because intaasaa laga rabaa mid ka mid a jawaabteeda inaad soo geliso kuwan keeba example noqon kara alkane oo simple bound ah structureka meesha noogu qoran marka la magacaabo inta midkooda ayuu noqonayaa liri general marka combustionka alkaneka la sameeyo inta mid ka mid a soo baxa mujida intaan badan keeba mostly methane ka samaysan daily propertyka uu leeyahay carbon monoxideska haddii la laqo waxaa keenayaa isku dhiskan kuweebaa noqonaya organic compounds mujida waxyaabahaas oo dhan waxaa laga rabaa inaad soo samaysaan 10kaas cabo oo circle-ka ah kan waxaa laga rabaa structureka ethine koobuu noqonaya su-aalahan waxaa sameeyey ustaad kimiko waxaad keli kartaan Kabe online college maadooyinka sayniska scientifica maadooyinka sayniska xisaabaadka insha allahu tacaala qof walba oo jabtarada ku adag jabtarka discount ayaan u sameynay jabtarka u baahantay maado kasta oo scientifica iyo fasalkoo yahay isagoo duuban oo diyaarsan ayaa laga iibinayaa si online ayaad ku iibsan kartaa wixii warbixina arintaas ku saabsan waxaad samayn kartaa si tartiiba ayaa waxaad ula xiriiraysaa whatsapp number-ka ah labo furahaas meesha noogu qoran ayaad la xiriiraysaa isagaa warbixinta ku siinaya insha allahu tacaala soo dhawaada aada umahadsantihiin intaan ku kulmi doono xiisadan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu